Weriyanimadu waa sooryo fiican haddii saxda loo abbaaro. Waxaa la yidhi si xun wax sheeguhu sixir waa ka daran yahay, ilayn waa kanoo kale shiina culay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta igu xidhan waan salaamayaa. Maanta waxaan ka hadli doonaa ninka baraha bulshada ganacsiga xaaraanta ku haysta. Waa kuma kaasi waa shiina culay. Ninkaasoo dad gaara loo adeegsado isla markaana lacag lagu siiyo sidii uu dadka u aflagaadeyn lahaa, isla markaana uu u caayi lahaa. Kuwa adeegsanayaana kama dhacaan oo xaaraan ayay ku bixinayaan, qofaan dad iyo dunya toona xeerinaynin. Haddaba ninkaasi waxa uu ka hadlaa arrimaha siyaasadda, marna waxa uu ka hadlaa dumarka iyo baridooda iyo naasahooda. fanaaniinta dawaagi dama dadku laba heesoodo midna ina xawaalaha la qaado midna iskaraaj la qaado heeso waxa weeye dafanku hadda waa iska sheegtaa hani UK la dhawaano hadda wixii ka dambeeya hani Hungary baa bixiya hani Hungary ya oo fiidiyogeeda la wado oo la leeyahay xaflad bay dhacday baa lacag baa. Ninkaasi waa nin xaaraan ku shaqaysta. Weriyanimadu waa sooryo fiican haddii saxda loo abbaaro, balse ninkani weriyanimada wuxuu ka qaatay heerka xun. Waxa uu ku faanaa af Soomaali baan hayaa, nin aftahanaan ahay. Haddaba aftahanimadu ma aha tan noocaasa. Haddii aad maahmaayo taqaano, haddii aad cid geed la fadhiisanayso oo aad ka badin karto, aftahan baa tahay. Balse haddii aad cid ataagayso oo aad caytamayso, ma tihid qof aftahana. Taana aftahanimo laguma tilmaami karo. Ninkaasina waa nin ganacsada oo weliba ka ganacsada ganacsi xaaraan ah, kaasoo YouTube-ka uu kaga ganacsado dumarka baridooda iyo naasahooda, iyo weliba dad uu si gaar ah u ataagayo isagoo lacag ku qaadanaya. Haddaba ninkani markiisii hore waxa uu ku soo shacbaxay Soomaaliya iyo Kenya iyo waxyaabo noocaas ah, iyo Faysal Cali Waraabe oo uu ku qabta Brussels. صاحبك ويي نشرف له ويي waxa weeye muddo dhowr iyo 10 sano isla waxaan xasuustaa oo dadka uga sheekeeya maalina igu aan isku aragnay Qureer Center Dubai oo aad tiri nimankii la oran jiray Xalab Ciise Maxamuud cidi gadoon waxa ii soo ergooday Xalab Saarax oo yiri kursiga aan Puntland ku lahayn baan la ka qaaday waa u raadi waa inuu umada Soomaaliyeed kelmad ii dadka waa xaleeyo qabyaalad iska daay hay Soomaaliya soo duceeya ana idin kala duceysan in loo dalo wanaagsan noqon idin kala isdaay shanta dowladda kala baabiya dowlad qudan noqon waayahay gudoomiye waxa weeye gudoomiye Faysal Cali Waraabe saaxiibkay gudoomiye gudoomiye weeye magaalada Brussels baan ku kulannay Faysal Cali Waraabe waa israacina insha Allah waa wada shaahina hadii la ka dhigo. Ninka shiina culay la yidhaa ayaa ahaan jiray nin ka tahriibay xagga iyo Puntland. maadaama uu tahriibay wuxuu tagay Jarmalka, gaar ahaan magaalada Dortmund, halkaasoo uu ku noolaa. Isla markaana wuxuu ka fikiray inuu si xaaraan ah u ganacsado, waxaana uu furtay meherad uu isagu ku sheegay meherad, balse ah meel ganacsiga xaaraanta ah lagu hayo oo ku dhex taala barta YouTube. Haddaba dadka YouTube maamula arrintan ma ogola in dad gaar ah la ataago, dad gaar ah wax laga sheego, dad gaar ah in si gaar ah loo fiirsado, balse iyagu af Soomaaliga ma garanayaan oo ma ka qaban karaan dadka ummadda. Haddaba ninkan wuxuu u baahan yahay cid u sheegta nimanka YouTube-ka si looga xidho kanaalka, maadaama uu ku soo gudbinayo waxyaabo aad u xun, sharafta bulshada iyo weliba amniga bulshada Soomaaliyeedna wax weyn gaarsiin karaa, maadaama uu dad madaxa caayo iyo dad masaakiina oo aan waxba galabsan oo lagu dirayo. Haddaba ninkan ayaa ceebeeyay dadka qaar uu isagu necab yahay ama dadka qaar loo adeegsado, kuwaasoo uu si xun u ataagayo isla markaana uu caayayo. haddaba caydu baraha bulshada way ka marantay
wariyanimaduna waa sooryo fiican haddii saxda loo abbaaro, balse ninkan wuxuu ka abbaaray xagga xun. waxaanu doonayaa in laga qabto bulshada. waan rajaynaynaa insha Allah. fadlan noo subscribe garee channelka haddii aad ka heshay muuqaalkan.